وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا أن الله مع الصابرين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم صدق الله العظيم. مقالة الشيخ ياجون وشيخ ميهي مقعن فريد كوحان كل ما شيخ لغن دونا ولا يقول يرى ما كان أنا هو صوم كيدا هلو شيخ قدي كل اللي يقول أنا شيخ قدي قدي نيسو دعي كل قد الله نقول نقول ودين الله نفرق. بعض ما هالسنتين برنامج كيني بحال كيني قصي سوعان دونا حتى أنا وحان كسر دوين يا محمد نور محمود هيبة أو قدوميها أوركا أو يسيو سنديغو فرع سنديغو وبرنامج كقيبتي سدمينو دادين دونا حتى لا يراجع محمد نور كسر دو. بسم الله. ogaadeen ha xoroodo ogaadeen ha xoroodo ogaadeen ha xoroodo Ethiopia السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلين عادي عاد بعد ما حسنتين شركة كسوق طيب قشان أوركا OISU إيكو قبتين مقالة سان دييغو runahaan marka la fiiriyo shirkan oo la qabtay wax badan baa ururkii laga bedelay oo shaqadii 3 sano soo socoto la qaban lahaa baa laga shaqeeyay gudoomiye cusubna waa la doortay oo waxa ku guuleystay hadaad garanaysid Mujaahid Sheekh Ibrahim markuu sababta aan shirkan ahad maanta oo joogno aan u qabanay public waa inaan hal yiraahdaa
wixii shirki ka soo baxay inuu maxaa la yiraahdaa dadka aan la sheer gareyno marka waxaan rabaa haddana inaan ku soo dhameeyo gudoomiyihii ku-xigeenkii hore ururka OYSU waxaan rabaa haddana soo dhaweeyo Shaafi Shilaabo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إذن سلامي دمان تدوينها كسوق قلي مناسبة قيمها بدن مانتا. أولا محام هذله إلهي ينوس سورة قلي مناسبة قيمها بدن إن مانتا سوق إيمانه مناسبة أن نكجا أرنسان إنه حالة دكتها جن ودن كني يدواتها هاي ستشعب جانا مركوه الرئيس وحنو مهد علينا يا ururka dhalinyarada iyo ardayda ogaadeen iyo qaybtiisa San Diego OYSU San Diego iyo taaliyada reer ogaadeenaya ee San Diego oo ahaantii isu kaashay inay suura gasho kuna guuleystaan martigelinta munaasabadan qiimaha badan oo soo socotay 3 bari maantana ay tahay maalintii ugu dambeysay oo la wadaagayno dadweynaha Soomaalida ogaadeenaya ku nool magaalada San Diego waxaan rabaa awalan inaan iftiin yar idinka bixiyo ama wax yar idin ifiyo waxa uu yahay ururka OYSU inaan idin fahansiiyo qaabkii uu soo shaqeynayay intii uu soo jiray xilligii la sameeyay iyo meeshu ka sii ambaqaadi doono midowga dhalinta ardayda Soomaalida ogaadeenaya Ogaden Youth and Student Union waa urur dhalinyaro oo ay ku midoobeen dhammaan dhalinyarada reer ogaadeenaya ee ku kala nool daafaha dunida ururkaas oo markii hore lagu aasaasay magaalada Copenhagen ee caasimadda waddanka Denmark bishii June 27 2010 ayaa waxa ku bahoobay ama ku midoobay dhammaan dhalinyarada ardayda Soomaalida ogaadeenaya ee ku kala nool daafaha dhalinyarada reer ogaadeenaya ayaa waxay ahaan jireen ururo farciyo kala duwan fasaxaatee magacyo kala duwan wata oo ka kala shaqeeya daafaha dunida waxa ururadaas oo kala ahaayeen ururkii dhalinyarada Ogaden Youth League ee Europe ururkii dhalinyarada ardayda ogaadeenaya ama Ogaden Youth Network ee qaaradda North America Ogaden Youth Forum oo ka shaqeyn jiray Australia Somali Ogaden Youth Alliance oo ka shaqeynaya Africa intoodaas ayaa waxay ku bahoobeen ama ku midoobeen midowga dhalinta ardayda Soomaalida ogaadeenaya oo loo yaqaano OYSU ujeedada ugu weyn ee loo sameeyay ururweynaha OYSU waxa ka mid ahaa mideynta urur hooseedyada ka jiray meelo fara badan oo adduunka ka mid ah kobcinta wacyiga siyaasiga ah ee la xiriira fahamka halganka mideynta fikirka dareenka iyo etaalka dhalinyarada iyo ardayda u dhalatay Soomaalida ogaadeenaya sidoo kale gaarsiinta beesha caalamka xasuuqa iyo xadgudubyada joogtada ah ee ka socda gudaha ogaadeenaya oo sameynta saaxiibo taageera qadiyada ogaadeenaya kasbashada muwaadiniinta u dhashay dalalka xorta ah ee jaaliyada Soomaalida ogaadeenaya ku dhex nool yihiin ku beerida dhalinyarada dareen dal iyo dad jacayl oo ku qotoma iyo carbinta dhalinyarada mas'uuliyadda lama huraanka ah ee sugaysa mustaqbalka sidii ay u hogaamin lahaayeen insha Allah ta'ala markii ay dhalato dawladda ogaadeenaya oo dhalan doonto markii tanka kale wuxuu ururka OYSU si wanaagsan oo tayo iyo etaal wanaag leh oo ga dhex muuqday marxalado badan oo adduunka ka mid ah iyagoo ku soo bandhigay barnaamijyo iyo xog aad u fara badan oo ka hadlaya qadiyada ogaadeenaya wuxuu ururka OYSU ka qaatay kaalin wanaagsan xoojinta iyo waxqabadka jaaliyadaha reer ogaadeenaya ee ka howlgala daafaha dunida caalamka ururweynaha OYSU wuxuu qabtay shirar fara badan seminaaro iyo munaasabado badan oo isugu jira kuwa lagu soo bandhigayo xuquuqul insaanka ogaadeenaya iyo abaabulka bulshada oo ka dhacay meelo kala duwan oo adduun weynaha ka mid ah tan iyo intii ururka OYSU uu jiray waxa uu qabsoomay laba kala fadhi oo midkii u dambeeyay oo ahaa kii halkan ka dhacay iyo kii ururku ku midoobay ururku intii uu jiray wuxuu run ahaantii ku guuleystay waxyaalo badan oo ay ka mid tahay sidii dhalinyarada ardayda reer ogaadeenaya ay uga duuli lahaayeen hal yool
iyaga oo taargadgaraynaya cadowgooda sidii ay u xoojin lahaayeen waxna ugu qaban lahaayeen bulshada waddanka Ogaadeniya u dhalatay ee ku tabaalaysan geeska Afrika. rabaanan hadda ku soo dhaweey xoghayaha ururka OSU Siyaaro Jabarti Ismaaciil Beena oo inoo bandhigi doona waxa shirkii ka soo baxay maadaama duna mudane Mujaahid Sheekh Ibraahim uu nala joogin marka mudane Jabarti ku soo dhawow. السلام عليكم. waxaan salaamayaa dhammaan odayaasha hooyooyinka madaxda iyo dhalinyarada oqaasha iyo dhammaan caruurtaba intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo OSU San Diego oo inoo suurtagelisay inaan isagu nimaano shirkan ballaaran adduunka dacaladiisana aan ooga kala nimaano. waxaan muddo 3 maalmood ku soo jirnay shirweynihii ururka midowga dhalinyarada iyo ardayda Soomaalida Ogaadeniya oo maantana maalinkiisii afraad ah. marka aniga oo ku hadlaya magaca xogayaha guud ee OSU mudane Mujaahid Sheekh Ibraahim Cabdallah go'aamadii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay shirweynihii OSU waxaa shirweynaha lagu soo bandhigay warbixinadii ururweynaha qaybihiisii kala duwanaa. waxaa lagu qiimeeyay qorshayaashii iyo waxqabadkii ururka 3 sano ee la soo dhaafay. mudane Jabarti markaas kadib qodobkan hadda waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno fogaanka arrimaha iyo abaabulka bulshada Jamhadda Wadaniga Xoreynta Ogaadeniya Maxamed Cabdi Yaasiin Dirane. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أوصيكم وإياي بتقوى الله. naftayda iyo dhammaanteen waxaa inoo dardaarmayaa inaan ilaahay ka cabsano sida khayrka ee cabsidana ilaahay hayna waafajiyo. waxaa laynoo abuuray baa cabsi uuna wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduuni. marka muhiimadii laynoo abuuray ee cabsida hayd ilaahay haynagu toosiyo oo ah inaynu wixii layna farayna yeelno wixii laynaga reebayna aynu iska dayn. intaa markaan soo qabo waqtiga awgiis waa soo gaagaabinayaa. waxaan ku soo koobayaa sheekada ninkaas halkaa ka sheekeynayay waa sida ay tahay use u sheegayay. waxaan u malayn hortiina inaad maqasheen waxaana ka ogtihiin laakiin sidan oo kaleeto iyadoo sequensigeeda iyo makhraatiyadeeda iyo saa loo qariyo kolkii saa lagugu aqrinayo waxaa laga yaabaa inay kolba si maartay
ay kugu muuqato sidii hore kasii maaragtay bedelan ama kasii waadaxsan sidaa awgeed dadka bani aadamka ah ee waxaa lagu samaynhayo maxaa la gudboon udina liladiina yuqaatiluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir bani aadamku gaal iyo muslim ma kala qofka bani aadamka ah ee insaanka ah haddii la dulmo wuxuu xaq u leeyahay inuu dagaalamo suux iska celiyo sidaa awgeed waxaa weeye waxaan xaq u leenahay horta inaan wax iska celin oo insaan ahaan bani aadam ahaan aynu ugu yeelanay kow laba waxaa waajib ina fuule cayni ah markaynu islaam noqonay haddana waxaasoo kale marka laynagu sameeyay inaynu dagaalamo oo soonkiiyo salaadoo kale sideeda fari noogu noqday أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فهذا هو فيرس ما حد قد لا بلادهم بها إلهي سبحانه وتعالى إليه جدك إلهي وقيب kuwa la duleysanayo la gumaysanayo la ducufisanayo gumaysiga iyo ducfiga ka saaridooda waa hadda kuwa la sheegayo saacadan joogno kuwa hadda lagu tilmaamayo in qaar kamida ama la kufsanayo ama la jirdilayo ama laba gowracayo kuwa waxaa lagu sameeyaa marka ay yihiin waa ehelkeeni waqtigaas soo koobaya أو أنا لفرتي الحمد لله هذا القضاء بيصوبرتي بدون يكحوجك الجبدة وضرب حريته وهذا مؤسسين تيا محمد ورجاء ولا سبحانه تذكر قال ما سبي ما تقعنا وحاجتي 1980 هاوش المركي عند ذلك كذا بالله بيني يعني تان محمد كان رفني معنه وهذا يكل وهو السعودي محمد إلا مالك ما تعال جوا مالك عرض متكيا والبنت على أكتاي هاوش أسأل كسوجرني لكن لو قال أنت صور مع المر ما أنت أقول لك على بدنها إسلام أقول لك على بدنها هلك ما أنت كسوجرني مالي أقول لك على بدنها في التاريخ ما يصور وحصور مرة 1994 markii dagaalku bilaabanayay Garigoor maalintii la soo weeraray isagoo cirka iyo dhulka laga soo weeraray oo ciidanka haysanayay 100 ka yar oo lacagta haysanayay tahay 200 oo bir iyo 80 kun shilin oo Soomaali ah oo markii la isku daro hadda aroon $20 dagaalkaasna inaan gallo ay ka liftay ilaahay idamkiisa ku galay iyo kolka quwad iimaan oo ilaahay nasiya ku galay jaariyada reer ogaada Yamaani ka jiray jaariyad yar oo Jabuuti ka jirtay ayaa wax jaariyada ka jirtay 70 jaariyood in ka badan ba maanta ogaadaya oo reer ogaadaya Ingiriiska ee oran jiray calanka Ingiriiska qoradu kaba dhacdana waa maanta calanka oo lef qoradu kaba dhacdo oo dhab alright waxa weeye halka waxaan leeyahay su'aashu waxa weeye maxaa la inoo gumaystaa hadda soo laga hadlay waxaad ogaataan magaca nin kale waxa la yiraahdaa Isaaq Daawan halka waa wada aqrin kartaan wuxuu madax ka ahaa bangiga adduunka ee Ethiopia wakiil u ah ninkaasi hadalku qoray wakaa 2050ka population ka Ethiopia 1500 milyan 150 milyan ayuu noqon doonaa 50 ama 60 milyan ayaa magaalooyinka soo gali doonta wali Ethiopia-na qaybteeda kore way ingirtay oo dhul baaran oo waxba ka soo bixinayeen noqotay sida awgeed 30 ilaa 40 milyan waxa laga maarmaan u leeyahay in dhulka hoose dhulka kore ilaa wax soo beedka u dhamaaday in loo raro ayay noqonaysaa
halkaas waa khariidadii waad aragtaan ogaadaya kow dhulka inta cagaarkeeda aragtaan ayaa khariidada dhulka Itoobiya lagu magacaabo dhulka dhulbeereedka ee marteelkii waa inta cagaarku ka muuqdo inta cagaarku ka muuqdo markaad eegto xagee kaga taala khariidada Itoobiya hadda xukunta ay gumaysato waa ogaadaya kaliya inta yar ee Birshangool iyo galbeedka ku taala intaas yar ku taala meel sidaamiyo u dhaxaysa Gambeelaha iyo wax yar oo halkan Oromada ku yaala waxaan ahayn ma jiraan dhammaan dhulka kale waa ogaaday warbixintan hoos ka waa Ministry of Planning oo Ethiopia lafteeda at 2004 ka warbixintu soo saaray way khayraadka dabiiciga markaan u kacno waxa weeye wabiyaalka waa dhulka afarta webi aan dhulkeena marta oo waad wada aragtaan kaasi waa wabigii afartii webi waa webi Shabeelle halkan waxa aan soo baxi doona Dawa River Dawa River way kaasi dhulka beereedka marka daawi marka ka soo baxo dhul beereedka dhulkeena boqolkii inta fertile-ka waa 25 boqolkii dhulka dhul beereedkii halka u korayso Soomaaliya waxa weeye waa dhulkaas saas uu noqonaya halka waa galadi buurta waa taqaan man malaynaya dadkii garanaya qabri jeeran marka galadi togi faafareed labadiisa dhinac waa dhulkaas dhulkeena horta halka waxaad ka aragtaa natural irrigation scheme marka dhulkaas inta u fiirsada dhulkeena waxa dhul beereedka horta goday baa soo qaadanayna hal webi baa mara waxay leedahay 6 tog oo waaweyn iyo 12 laagood oo yar yar dhul beereedkeedu waa 410,000 oo hektar qorraxay webi ma maro laakiin toga weyn ee faafan baa mara iyo 4 laagood oo iyaguna biyo keeno waaweyn 225,000 oo dhul beereed ayay leedahay nogob hal webi baa mara 7 tog bay leedahay oo waaweyn marka togaga marka lagu leeyahay togaga qaarkood 6 bilood biyo soconayaan webi marka leenahayna biyihiisu waa sanadkii oo dhawada joogta iyo 7 laagood oo kale 210,000 oo waxay leedahay dhul beereed oo hektar jigjiga webi ma maro 2 tog baa mara 5 laagood 230,000 ayay leedahay dhagax buur 2 laagood oo waaweyn 4 tog bay leedahay 60,000 oo dhul beereed ay leedahay afdheer 2 webi baa mara 6 tog oo waaweyn 8 laagood laakiin dhulka meelaha 170 way liibaan waa 2 webi 3 laagood iyo 3 tog 50,000 wardheer webi male dhulka dhul beereed maaha waa dhul daaqeed okay taariikhda soorsiga Serbi baa soo saartay iyo Aws waa warbixintii 1998 dhulkeena marka dhul beereedkiisu muxuu isku tagay 1,350,000 oo hektar adduunka wax haysta uu yaryahay dhulka dhul daaqeedka waxaa ugu badan nogob ciid iyo doollo waa dhulka xooluhu daaqaan wuxuu noqonayaa dhulka noocaasi saas u eg waa dhulkaas nooca u eg waana 20% dhulkeena 20% noocaas u weey rangelandka ama dhulka mataqaana kale dhul daaqeedka saas weeye waa dhulka noocaas oo kala 5% isaguna dhulkeena
dhulka bushlandka ah ee macnihii waxoogaa ay dhirta iyo geedkuna uusan saa ugu sii badnayn waa 5% noocaasu isaguna yahay xoolaha marka geela waad aragtaan dhulkii xoolaha marka waa halkan livestock population in the Ogaden geela ku nool waxaa lagu qiyaasay waa iyagii warbixinta soo saartay African Park Development weeye 1996kii 2 milyan oo geela 10 milyan oo ida ah 8 milyan oo riyaa iyo 6 milyan oo lo ah halkan waxa weeye waa dhulka shidaalka jeexdin hilaal meesha lagu bacaya waa elele qofka dhulka yaqaan hargeyle oballe inta soo basic dhexe oo aad aragtiro waa dhulka uu ku soo aruuraba dhamaan dhulkaasi waa dhulka shidaalka ku jiro u fiirso 16 bam ayaa installed ah oo already ready for use kuwa kala 10na waa diyaar oo illa bamka la saaro ay jeexdin u baahan yihiin oballe exploration stage buu ahaa way wadeen waa dadkay wixii ka dhacay elalle 20 ceel ayaa installationkii in la saaro ay saarayeen oo bamki iyaga in la soo kaliya u laabantahay hargeyle waa sidoo kale exploration laakiin waa looba inta soo dhan in ku wada jiraan halkan u fiirsan marka haday ninka hadalkiisa waxa ku jiray waxaan soo qaaday halkan batroolka dhulkeena markii la helay iyo cid ugu horeysay dhulkeena u fiirso 1930kii ilaa 1970kii timid waa column hore qoladii ugu horeysay ee soo saartay shidaalkeena heshay ajabaydo Talyaaniga waxa ku xigay Shell oo UK Mobil oo USA Wildstone oo USA Voyager oo USA Singular iyo Go oo Germany ah todobadaas waxay ahayd intuu dhaxaysay 30 ilaa 70 ilaa 90 intuu dhaxaysayna waa inta kale aragtaan dhammaan ilaa 2009kii kuwii ugu dambeeyay marka ee soo galay waa kuwa ee sheekh la saxday waa 24 kan bari halkan marka u fiirsado maxaa la inoo gumaystaa badeed dhulkaas aad haysataan bal populationka Ogaden waa 5 milyan Ethiopia waxaa lagu qiyaasaa 70 marka xilliga la soo saaray waa 2008kii population ka sub-Sahara dadka ku nool ee Afrikana waxa la yiraahdaa 500 oo milyan hadaba dhul daaqeedka sub-Sahara oo dhan ama Ogaden rangeland waxay ka tahay Ethiopia markii la yiraahdo 5% dhulka xoolo daaqan markii la yiraahdo sub-Sahara 5% bay noqonaysaa sub-Sahara imsa ku nool illa South Africa ku jirta sub-Sahara waxa way waa 500 milyan dhul xoolaadka ay lahaayeen yaa adigoo 5 milyan ay ku qiyaasayaan tirada wax soo noqotay yaa waxa leedahay 5% xoolaha markii la yiraahdo Ethiopia markii la yiraahdo 70% yaa livestock jooga ee Ogaden yiraahdo sub-Sahara oo idil xoolaha ku nool 12% ba Ogaden ku nool mineralska markii la yiraahdo marka iyo macdanta Ethiopia markii la yiraahdo 5% ayaa ku jirta Ogaden sub-Sahara oo dhan macdanta ku jirta waa mineralska laga hadlayaa waa 5% tana yaable bal u fiirso Ogaden oil and gas Ethiopia 100% waxa shidaal ku jira Ogaden ku jira sub-Sahara waxa ku jira ee shidaal ana 5% ba Ogaden ku jirta
resource against sharing population surveying World Bank World Bank ma soo saari ma oo aan ilmo soo saarin propaganda personal ma aha wax jirma wax xaqiiqo jirta oo adduunka taal haddaba halkaas aan ku daynayaa xoolaha iyo dhulka iyo ummadda iyo barwaaqada كيف مين اللي سودين بعد ما يسند واي ويلك إثيوبياكي أمحاركا النجاسكي وقولي مريا محار وحنور دبعته وصبين هي خيراتكم إثيوبيا وين قلت مركا تذكرنا خير وغادية هاوشا صايدين تعلق وبالله التوفيق. Dear OISU members, accept my best greetings. That comes from the bottom of my heart. Greetings that is sent to somebody you love, somebody you care or is close to you, somebody you are proud of, our sons and daughters, our sisters and brothers, our beloved youth. You are truly our heroes and we are all proud of you. You are the dreams of our dreams, the face of our country, the beauty of our culture, the roses of our people, the spirit of our struggle, the hope of our children. You are the voices of our voiceless citizens, the advocates for our oppressed civilians, the reliable friends of our movements, the campaigners for justice and equality. You are the fresh, healthy brains of today. Our feared warriors, our strong leaders for tomorrow, our bright future for the next generation. We are all proud of you. Dear our beloved youth, you have lifted our spirits, sharpened our focuses, increased our confidence, became our daily motivators, and kept our morale high, not because of whom you are, but because of what you are doing. Thank you for your powerful messages, your well-articulated words, and your heartbreaking stories. We want to be able to show what OISU can do. Marka dhalinyaro badan baa jirta who are very, very talented. They do a lot of workshops and seminars. And so the whole reason why we wanted to have this meeting today was to be able to show dhalinyarada wixii qaban karto. And so right now we're going to have workshop yar, a little seminar by Naima Mohammed Ismail from Australia on displaced and disenfranchised, the struggle of the people of the Ogaden. Assalamu alaikum, good evening everyone. Firstly, I'd like to say that I am extremely happy to be taking part in this monumental and truly pivotal event, the second Ogaden Youth and Student Union International Conference. I travelled all the way from Australia to be here today as a representative of OISU Asia Pacific. I know other fellow Ogaden Youth and Student Union members also travelled from very long distances to be here this week. And the unanimous consensus from us all is that if we had to travel distances 2, 3 or 4 times longer, we would do it without thinking twice. And if we had to put our studies, work and personal lives on hold for more than the week we have for this conference this week, we would do it without a doubt. This is how concretely committed we are to our cause as Ogaden Youth and Student Union. We are here to create awareness about the legitimate liberation struggle and the genocide and the crimes against humanity taking place in Ogaden. You can look around this hall that we are sitting in today to see and truly appreciate that this youth-led global movement, Ogaden Youth and Student Union, knows no geographic boundaries, with OISU branches in every single continent on this beautiful God-given earth, unfortunately of which Ogaden people are not living peacefully. In the last week, during our closed meetings, I found myself taking in on more than several occasions how honoured I felt, how honoured it was to be at this conference, to be sitting and working with such a committed, selfless
passionate, proactive, and intelligent group of young revolutionaries. Who are tirelessly fighting against the heartbreaking injustice that is happening in Ogaden. The room was vibrant with OISU members from all over the world. This is, again, we must mention how committed we are as OISU to create awareness about the legitimate liberation struggle, the crimes against humanity, and genocide that is taking place in our beautiful home, Ogaden. The topic I will cover today in this talk is the displacement and disenfranchisement of the Ogadeni people, with a specific focus on the most vulnerable group of all, as we know, women and children. But before I do so, I would like to tribute a special thank you to OISU San Diego and anyone who was involved in the realization of this truly pivotal conference that we are sitting in today. Displaced and disenfranchised, this is the situation of the Ogadeni people. Millions have been forced to flee from their native homeland. The key word here is forced. They have brutally been forced to leave everything they had, their families and their belongings. They did not leave due to a natural disaster. They did not leave because they decided that they no longer liked the weather. And they did not leave because they wanted to experience the life of a refugee just for the sake of it. The displaced and disenfranchised Ogadeni people have been pulled out and extracted from their natural habitat, like a tree mercilessly ripped from its root, or a bone brutally torn from its socket. These metaphors are a feeble attempt by myself to try and depict some of the pain the men, women, and children of Ogaden are feeling. But surely, my attempt that does not do this any justice. Justice. What a beautiful notion in theory, and what an amazing concept in practicality. Justice, a basic human right, a right the Ogadeni people have never known, a right the Ogadeni have been systematically denied. Not only have they been denied justice, but they have been massacred and are victims of ethnic cleansing and genocide. This is happening under the scrutiny of the international community, which have turned a complete blind eye on the crimes against humanity that is taking place in Ogaden. And this, dear respected listeners, has been going on for far too long. Displaced, disenfranchised, genocide, and crimes against humanity paints the story of death, darkness, devastation, heartache, sorrow, and endless frustrations of a nation. This is the sad but true essence of Ogaden and its people today. The Ethiopian government's systematic genocide and crimes against humanity campaign against the Ogadeni people shows no mercy to anyone. It does not matter if you are elderly, a woman, handicapped, or even a child. If you are Ogadeni, you automatically qualify to be executed, to be tortured, to be raped, and to be illegally imprisoned for as long as they want. The Ethiopian security forces are given blanket impunity
to kill whomever they want under the pretext of suspected support and sympathy for the ONLF. These crimes have been documented by renowned human rights organizations. Genocide Watch outlines that the Ethiopian government's policy in Ogaden is to suppress all demands for autonomy from Ogadenis. It has included gradual starvation of the population in internally displaced persons camps, a policy Genocide Watch calls genocide by attrition. Genocide by attrition is one of the many cruel tools that the Ethiopian government implements. It results in the right to life of the Ogadenis being threatened through concentration and forced displacement, together with systematic deprivation of food, water, sanitary and medical facilities. These measures, along with the frequent imposition of overcrowded living quarters, lead to countless deaths through disease and starvation. According to the Internal Displacement Monitoring Center, IDMC, whole Ogadeni communities have been forcefully relocated to areas controlled by the army. Photographer Seamus Murphy, winner of 7 World Press Photo Awards, who has been described as a poet with a camera, went to numerous internally displaced persons camp in Ogaden in 2000 and captured these images. Together, we decided that this is something that we want to have all across the world as OISU. The project is called Build a School, Educate a Child. And the school, to give you guys the background, the reason why we decided to do this project is because first, the project focuses on promoting the education of the young orphans living in the Dadaab refugee camps. And as you guys have been hearing all night about the testimonies of the victims of the genocide who are currently living in the Dadaab refugee camps, you can imagine the kids are the ones that are suffering the most. Most children their age are probably having a pretty normal childhood. However, due to the circumstances that they've experienced, a lot of these kids are robbed of the normalcy of a normal development in life. Therefore, we decided focusing on their education was the only way to restore that normalcy as well as change the future. We learned about an existence of an organization called Horn of Africa Orphanage Relief that's located in Kenya. And the organization runs 3 schools in the refugee camps, Ifo, Dabahle, and Hagadet. And so the background information about the school is there's 300 students, approximately 60 teachers, and the curriculum is basically the Kenyan education system as well as Islamic teaching. And we, after deciding which organization we wanted to partner up with, we also had to decide whether we wanted to support the new programs that the school was already establishing, or if we wanted to help with building a new school. And we decided to first interview the children to assess the situation. And we had our brothers and sisters of OISU Kenya help us with conducting interviews of 45 children that attend the school currently. And some of the questions that we asked were, what schools they went to, what was their names, their age, what they wanted to do once they grew up, what did they wanted to study in college, and basically if they could have any dream or aspirations, what did they want to do. And this is what they told us. Some of them wanted to become doctors, engineers, pilots, and scholars of the Islamic religion. Another thing that they told us was basically baahidooda waxay u baahan yihiin iskuulka hadda dhigtaan. Waxay noo sheegeen waxay u baahan yihiin buugyaal, qaliyaal, chairs, desks, fence, better bathrooms, infrastructure, fixing the buildings in which they live. Sida ciyaalka noo sheegeen dhul badan ay haystaan laakiin waxaa ka maqan the infrastructure and the buildings.
waxaa runtii aan aad iyo aad ugu faraxsanahay munaasabadii xafladii xidhitaanka shirkii guuleed shirweynihii guuleed ee ururka OSU sida jaaliyadii San Diego ee waalidkii soo barbaariyay dhalinyarada aan aragno ee mustaqbalka ogaadaya waalidkoodii ay uga soo qayb galeen yaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama dad la gumaystay aynu nahay oo gumaysigu uu qayrkeena naga reebay dhinac kasta markii laga eego da'da ay ka yar tahay ee waliba ay dibadaha ku soo kortay way ka maadaragtay firfircoon tahay way ka aqoon badan tahay marka da'dii baa hadda halganka la wareegtay iyaga hadda charter garaynaya line-ka la marayo iyo habka loo halgamayo iyo sida loo abaabulayo halgankeenu waa halgan la caburiyey caalamiyan oo indhaha laga xidhay oo dhagaha laga xidhay oo adduunka laga xidhay wuxuu u baahan yahay markaa dadkii adduunka u soo bandhigi lahaa iyo technique loogu soo bandhigayo qoladiiba hadda halganka maanta gacanta ku dhigtay oo waa ururka dhalinyarada ee markaas haddii aan odayaasha sida Maxamed Ismaaciil iyo Maxamed Cabdi Yaasiin iyo oo dadkii de bahasha soo waday haddaan maanta seexano soo qabriga ma qaban karno nin baa wuxuu yidhi baa la yidhi nin Afrikaan Congolese ahaayo oo dadkii Afrika gobonnimadeeda iyo dalkiisa usoo halgamaya Pan Africanism oo Lumumba la odhan jiray Lumumba waa maqasheen yaa waxaa la yidhi Lumumba uu dhintay markaasaa la yidhi Lumumba haduuna 100 Lumumba ka tegay yaa marka dadkeena shahiiday maanta iyo kuwa shahiidi doona iyo kuwa baxoo idilu ciil kagama dhimanayaan oo maanta ma aha maaragtay 2 iyo 3 meelaha laga raadinayay ee halgankeedii waa sida uu Maxamed sheegay calankuna qorraxdu kama dhacdo halganku meeluhu ka socday jaaliyaduna qorraxda kama dhacaan marka waxaan leeyahay OSU congratulations baan idin leeyahay waa idin bogaadinayaa ururka OSU maalin baan halkan kula shiray ururka OSU San Diego markii iyaga la yidhi waxaad qabanay waxaad hoosti garaynaysaa muxuu ahaa yani it was January markii aan halkan iman jiray marka dhowr yar way tira yaraayeen markaas waxaan inta yar ka ahay weliba da'da yar ee tirada yar sidee Congress-ka weynaayo caalamka oo ay u qabanayaan baan lahaa markaad sii jirto muxuu cimrigaaga oo raagay markaad sii jirto way arba ku kordhaya iyo aqoon macnaheedu tirada ma aha waa tayada waa tira hadday wax tarayso waad ogtiin dad tiro badan oo waxba ahayn iyo dad yar oo adduunkaba gumaysta soo ma jiraan meelo badan baad eegaysaan haddaad quality waxa maanta adduunka ka talinaya markaasaa quality-gii ayay ku qabteen ururka San Diego ay ku qabteen runtii ururada kale ee brancheska kaleete ee OSU inay ku daydaan oo weliba iyaguna intay tartamanay qoladii siday maalintii samaysay aan kasii badan andaas horumarku sidaa weeyaan
Rahmat.